waa tahay daawadayaal haatan waxaanu ku sugannahay wadada tabca ee halista badan oo isku xidha magaalooyinka Ceerigaabo iyo Maydh waxaanu taaganahay godka ku dhex yaala wadada tabca oo ah god isaga ay ka dhex baxaan baabuurtu daawadayaal barnaamijkeena iyo toddobaadkan diiradda wacyiga waxaanu ku soo qaadan doonaa magaalada qadiimiga ee Maydh waxaanu uga sii boqoli doonaa waliba buurta caanka ah ee Rabshiga safarkeena iyo toddobaadkanna waxaanu ka bilaabi doonaa waa diiradda wacyiga bartan iyo tabca subax wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kasta inaad joogtaan haatan waxaanu ku sugannahay magaalo xeebeedda qadiimiga ah ee Maydh waxaanu magaalo xeebeedda qadiimiga ee Maydh idinka soo diyaarin doonaa barnaamijka noociisa hore loo arag safar aan markiisii u horeysay lagu tago buurta Rabshiga iyo waliba taariikhda rasmiga ah ee ku duugan buurtaasi muddo saacadan ka yareen waxaanu u sii socon doonaa buurta Rabshiga waxaana safarkeenugu weheliyay daawade mid ka mid ah shaqaalihii ugu horeeyay ee ka hawlgala buurta Rabshiga markii koowaadna waxaanu si mug iyo miisaan leh oo faahfaahsan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka diiradda wacyiga buurta Rabshiga iyo taariikhda ku duugan sidoo kale waxaanu xubinta labaad idinku soo gudbin doonaa magaalo xeebeedda Maydh safarka waxaanu bilaabi doonaa daqiiqado kadib waxaanuna badda sii dhabali doonaa muddo saacad ah Sela, 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 sela. daawadayaal saacadu waa 7:00 subaxnimo oo gow ah waxaanu gudagalay safarkeena aynu kaga ambabaxaynay magaalo xeebeedda Maydh guna kicitimaynay dhanka iyo buurta Rabshiga waxa igu heliya safarka jaamac dhunkaal oo Maydh looga yaqaan ama lagu naanayso Garwan waxa uu jaamac ka mid yahay shaqaalihii ugu horeeyay ee buurta Rabshiga ka hawlgala jaamac ku soo dhaw telefishinka caalamiga Star TV saddex iyo kontonkii ayaan anigu halka ka hawlgalay anoo inan yara arab ubeedaan la odhan jiro Maydh joogay iyo rag kale dadka qori jiray waa tahay waxaynu waraysiga oo dhammaystiran daawadayaal ku guda geli doonaa buurta Rabshiga bogcad godgod iyo waayihii waqti tagay
daawadayaal qadar saacadii saayida dabadii waxaan soo gaarnay buurta Rabshiga taariikhda markii koowaad waxa telefishinka caalamiga Star TV noqon doona TV-gii u horeeyay ee si rasmi ah barnaamij ugu qorfeeya amaba ugu soo bandhiga bulshada waxaan ugu dulmeehanaamaya malaayiin shimbira ah halka malaayiin kalena ay guud ka fadhiyaan safarkuna haatan ayuu bilow yahay waana safar aad u adag buurtana dhammaan goob kasta oo aad ag dhigto iyo meel aad gacan saartaba waa mid siibsiibanaysa xaarka shimbiraha darteed waynu socon doonaa jaamac halkan uu diyaar inoogu yahay sida diiradda idinka muuqata oo uu xaabxaabanaya sidoo kale waxa safarka isaguna ugu weheliya ninaan saaxiibanahay la yahay maxamed xarago iyo farsamo yaqaankayga maxamed cabdiraxmaan safarka halkan ayaynu ka bilaabaynaa kooxdayadii kalena waxay gaadiidka ama feebarka nagu wadayna waxay iyaguna u kacitimeen kalluumaysi waayo buurta Rabshiga waxa in badan bulshadu ay yaqiinsan tahay ama la wada garowsan yahay inay tahay bogcad qaniyadu ka ah kalluunada ugu qaalisan dunida noocyada saaxiibada ay soo qabtaana waa hawl kale ah oo isugu soo noqon doona haatanna waxaynu bilaabi doonaa si rasmi ah safarkeeni buurta Rabshiga عاجي جامع وحقاد يمكن دعسك ولا بحد أنا بود بابا وصو حداي مثلا أنا بود كوصو حداي أنا دعسك ولا بحد ما قرفيات ما له حده كاس أدان دونا أنا والله بحي دونا أطي ديفان سما ها واقرتي هل كان ينكب بلعبنا قلت كني واكي قلت كبح لينا جنبته محاتري وعلي شعبك iyo bulshada ku daawadaysa magacii godkan قلت كبح لينا جنبته ها waad kartay waa meesha la dhigi jiray raashinka shaqaalaha buurta Rabshiga waa kartay aan hore ugu yar socon waaya jaamac gambajaha iyo adiga xilliba isugu kiin dambeysay gambajaha godka gambajaha iyo adiga xilliba jaamac isugu kiin dambeysay taariikh intee laga isugu kiin dambeysay anigu ha horta meesha wax la dhigi jiray waka godkii wax la dhigi jiray waa saxaarada waaweyn halka waa la dhigi jiray waan gartay halkaana wax la dhigi jiray tanaad haye doonida halkay ku soo xidhantay taafka haye dabeedna shaqaalaha xaabada iyo biyaha iyo timirta iyo bariiska ka daabuli jiray waan gartay nimanka wax kariya waxay joogi jireen halka haye beeshana wax lagu karin jiray ragiina kuuliga ah ee soo guraya xaarka shimbiruuna jaamac halka ku sugnayd anigu waxaan ku sugan maalintii halkaan u iman jiray oo soo cunto doonay inta kalena guudka انت كان waxaan xarsad laanu saaxantay xarsad le god weyn oo ina ka horeeya god weyn oo ka horeeya jaamac ma kor baynu koraynaa buurta iyo ma muuqato talow meelaynu ka kornaa ma kor buu jiraa godka magaciisa igu celi xarsad le xeebta halkaanu ka wareegay xarsad la seexan jirtay halkaanu ka shaqeyn jirnay arooriyadii inta inaan xarsad le u gelin jaamac halka xaalka shimbiraha laga soo guri jiray iyaga magacyadooda bulshada ma iftiimin kartaa waa dusha weeye haye dusha ballaaran ee buurta Rabshiga ha mar hadaad gaadho waa de iska buuxda way buuxda ha haye marka waxaanu ka bixin jiray leel lagu diriir baa la yiraahdo muudiga la dhigi jiray marka lagu diriir baynu inana ka baxnaa godad baynu tagaynaa caynkaasa haye oo lagala soo degaa waa tahay daawadayaal aniga xaaji jaamac waxaanu ka bixi doonaa godka lagu diriir oo jaamac iyo isaga ay isugu dambeysay 1950yadii soo socod jaamac maxaa galaynu u kacnaa حاجي جامع waxaan soo gaadhnay dabadii loo mariyay xarsasle waxa halka iga muuqda qalbiga oo buuxa galkan miyaad ka ogeyd mise waa ka ogeyd buura sayan bay ahay waxa sidaa u galay wax weeye duufaanadii baa faruuray wadanka duufaanadii baa ha allo amar saad haddii duufaanadu jaamac faruuray xagee uga gudubnaa xarsasle iyo halkaynu soconay ama saxiibaday noo iman ama halkaasaan ku dhaadhici intay joogteedu joogu uu yahay
كذا أنا وكاسو طبعا داعي مركا وايجيا إن تجسوا تبغون بس الحمد شقدي كلهم كي نوقو مقنتها ما ديرا داعي تاسوي طبعا ما نسحب هاي ويا لفتيدي نو كيرن تعس حمد إنه يراني منك ما دام ده ماشينا يهولن تهاي أنا ضد داعي كارين ولو أنا إسكوب بدبادية تعب دباش عن كأقانه هذا حوق سما بيمين كارين وقرفان يود يردقح ماشون وحلاده أبجورية تفهم قبل لك إيسا ما دعين ولا بيقول هل كان نبغى القمصتين أنت صور الوحيد بكيسة ساعة وطول فنقات لا إله إلا الله هاي لك يا هاي نور دعين هاي نور مركب بيوحدر بان الهير ده داو عسين دي دم كا أبجورية بيها كل حشرتها أبجورية دعين من حمد الراعنا طبعاً ولو أنا سجننا أبجوريدي جامع شيء أنا نقول عادين هالكيدي هذا أنا حرص له سحيمة دي وينات تيمي لين عن حرص له نقول وريجنا يو سحيمة ده أنا كنت جينا هالك جامع شيء نقول باعي حاجة جامع لا حرص لنا وبوح جامع حرص له وسوق قدني كهرة نقول صعنا سحيمة ده halkaas uu gali jiray la saaxan jiray ilaa 10 qabiil isugu iman jiray waxa aad arkayso meesho jiir bay leedahay khatar oo dadka cuni jiray oo waaweyn marka wax weeye hadaan weygiiba hilib la siin ama kalluunkaas oo barwaaqa aan cununo marqiis cabin waa la barari jiray cudur baa laga qaan jiirka iyo meesha saaxumadeeda waa adiga arkay يا واحد شيرك لفتر كيسة لسينشرة كلون يهرب معي شيرك مايا وطاق ورجع دتك دتك لسينشرة جام حرص لها الكيسة إنه أضاف الماينة دعوة وجود منها لا قدير ليش مودك اللي دقيت ترى دويا اللي قريت واضحة أنا يا شاعر وحن سوق قرني بقعد أنا أسعنى عرفت بدن وقصة مرني مرة أنا قال كي شاعر أريد كل شيء جيان وقول عقاري حاج شاعر وحن سوق قرني هل لقود درير ولا سكولي هذه يشير قبيلة ياش هل كامارك إلى هل كاسوعتان كاس بس إذا مودو توفية هي دور هل كاسو سوحنا وطا هل كاس هل جل يالله إن بدو هل كاس شوقان هل كاس يركض بيسا إلى هل كاس هل جرى يا دولة وان قرطي هل كا واحد موديسا كوست كاوا نافيسا
haye sida buudiga loo duldhigayo haye sida loo duldhigayo marka qabaa'ilkiya kaga shaqayn jirteen meesha ha dadka waxa lagu soo xulin jiray habeeleed sida muuqata ha de maya waskay ma jireen waxa lagu dhambaa inteeda kale waa la isugu jiray la isugu jiray waa tahay markaas dadku isku qabsan jiray lagu dirisaas lagu bixiyay ma haayo had ya jeer marka wax la rarayo ba kiis baad ugu dhufatay waxa halkaas faarax qabiilka abuurta laakiin jaan su'aal ku weydiiyay marka aynigayga ahayd aniga wad arkayso kacaakuf iyo suxulada dulba dhiigu iga da'ay iyo maraan siibto halkii aan ku dhici gaaro baasha halista ay joogtay ayay ahayd jaarkan iga sareeya inta faraad badan iyo buurta intaas oo dhan iga hooseysa dooyuu halkaas ay ku soo xidhan jireen idinkuna halkaas kala soo degdegi jirteen bal bulshada sida tafaasiilka yarasi 53 baan bilaabay anoo ina yara oo mayri ma carabti iyo kuwii wakiilada aynooba waxaan waan tagaya waxay ina yar baato ma guri kartid buurta ka bixi nin bay dabeetay waxay ana guraya sidii baa ilaahay ugu soo guulay mar labaadna waan ku noqday daleel bay noo noqotay daleel hadda waxaan yaabanahay daleelay maxaa tahay daleelay waxa weeye waa meel banaan weey meel banaan daleel hadda daleel bay meeshii noqotay waxa jira halkan yaa fariisin jiray halka fariisin jiray ka dambaysa ninka xaariska ee waxa sidoo ka teer gareynaya ee ka dhigaya orayo shub iyo arabka qoraya waa gartay ninkaas markaa wuxuu tijaabiyay xaarka shimbiruhu ma noocyo kala fiican iyo noocyo xun ma laha miisaanka laga doonayaa buu ka dhigaya miisaanka laga doonayo waa Soomaali oo laga ma waayo masmaas sababtoo qaar baa baalasha bahasha baqtiyay ka soo buuxinaya baalashi shimbiraha dhintay haye say carabka oo qiyaama sida ay u qiyaamayaan waan gartay kaasuna wakiil buu ka yahay waa ka qaadaya oraya celitaan haye waa ka qabanaya haye waa haye waa gartay jaamac waxa la sheegaa waqtigii kontaneeyadii carabi way guran jirto taa wala isla wada garanayaan dhanka kale wadamada Irishka ama Ingiriiska oo kale ayaa iyana guran jiray bal taariikhda bulshada maxaa dib u ka xasuusin kartaa ma waxa weeye anigu Irishka iyo dadkanu iska tuugaysay ahay haye laakiin anigu sharci ahaan 53 markaan wadanka iyo Ingiriisna waa haystay haye Carabina waa guranaysa ha waa sababtoo ay yaani Ingiriiska cadana haye si macaamiladu ahayd marka kama warayo marka cadana isaga ka talinay waa gartay waqtigan 53 waxa ka soo wareegay taariikh aan 60 ka yarayn waa run hadaanay ka badnayn markaad eegto jaamac waqtiga waxa maxaa lagu fali jiray baad soran kartaa xaalka shimbiraha markaan wax soo halay beeraha haye baa lagu fali haye beeraha lagu fali jiray maxaasiyan buuriga baa dhinacooda aad uga baxa haye kaasaa baa lagu fali jiray lagu hagaajin jiray haye مثلا هذا رتو هذا ركيسة إلى أنت الليل ودكذا دن أبورك بدات كهيستا هذا مركز لو تخاخون كل هاي حبت بوري بوالوي صوتو قاري معي لبيه لباتن كيلو جه هو قاري بقول يا من دحيدا ها أما هلكا ها وان قرتي حاج جامع إميكا محلو قرون واي بكرة هاي حركة شمبرها حاسة لك جمارم بين آدم وحمل يا إلهنا كبرني ولا توجستا بارو مرينا ولا توجستا ها وان قرتي لكن يهو وكل وقت يدا حاجة وقت يدا محطي أي طبيعها كدعيان نتشبيدو هل كان دنيا فرق بدنا يا ساق على سيد الله الشاقة هاي مو يبارك عارو كلهم بيكورتان مراكب طوات بعدا كلهم بالغو الشاقة لكن رمشي أنا ويكسر حدان كلهم بالغو الشاقة هذا هل كان كسر حدان ها دل أو حلو وكير ما يبغى كوا صحراء ها وعبد ما ردان هالكبوع حيني ها نكون بس كم طلاب سنتر وقتي حتى نوصل نقولنا حاجة شام وقت جاه كل يستهي إنجليز كدل كان كأرهميني سيدو كلا عدن وهيستي dadkiina la soo xulay ka shaqeyn jiray buurta rabshiga jaanibka u soo guri jiray xarka shimbiraha mushahar maxaa qaadan jirteen jaamac annagu maraykan muxuu yahay gooyaasha maraykan baftada mataqa baftaan garanaya waa maraykan madow oo cadaan ama madowna waa go
maraykaan haddaad maqasho waa ama daaqad haye oo waa 3 goob ama waa 6 goob haye ninkii aba 6 goob u qaadanaya ama 9 goob u qaadanaya maraykaankaas waa gartay maxaa lacag ku dheera adiga wax laga doonaya halka markaa timaado 2 kiish haye waqti intee leeg baa 2 kiish laga rabaa hadda ay ma bishii ma maalintii yoomkii baa laga rabaa yoomkiina 2 kiish keento hadda ha ninkii shaqaysanaya dheeraya ha 10 kilo saayido dhigi kara 10 kiish oo buurta casaba haye arugu labadii jeeraan xoogiina marka jaac lagaga bedelin jiray maraykaan dadkaad u soo shaqo tagteen waqtiga nin yar baad ahay iyo waalidkii shaqo tag baad ugu maqan tahay soo maaha marka maxaa iyaga u noqonaya aniga waxa u noqonaya waxna loo oran jiray shaqaysta oo wax maasuul la yiraaho overtime waa waqti dheeraad ah haye marka ninkii 15 20 uu dhigan jiray waan gartay 30 haduu toba 15 rubood waa gartay lacagtu halkaas ay ka beeri jirtay haye faraas iyo sokor baa lagu siin jiray waan gartay taadiina maraykaan baa lagu siin jiray waan gartay deesaasa wax isku la daayay waan gartay teeda kale raashinka halka ka qaadataa biirsanay waan gartay nusro albaad leedahay nus kiilo bariis haye baa dheer baftadii maraykaanka adigu aad cunaysaa iyo nusrada timira iyo ruba sonkora haye taasaad qayb ka dhigaysaa marka taasaad kala tashiiliyo qaybna waad cuni qaybna waad dhigi isku sixilitiin macna 7 nin haye shuraaka gelaysaa haye maxaan u dhaqaalaysanaa haye te inta noo kariya haye te waa qaraxaya laqaya timirtaada toba waliba weynay dheri karsata waa gartay timirtooda ku darsanayaan haye tobankii cashuba raashin baa beerayo lagu misiyaad meel dhigar haye te waa haye jaac waqtiga malaha ragiina maraykaanka ay ku shaqeynayay rodolka timira iyo xogaga bariiska iskila bariiska mala ragiina saaba ugu tugtug roonaayo dadku ma jeerin kale ma jireen qaar baa xatabka qura goyn jiray xataba maxaa tahay xatabka waxa weeye waa dhirta qalashay buurta rabshiga xaaba looga dhigay ilaa waa buurta shimbiraha iyo dhaxanta kaliye waa gartay hadda soo waxaan yaabanaaniyo aniga hadeer baa la yaabanahay taamar buura inta laale ayka baahay bariga haye wadooyin la maro oo wadiiqooyina bay lahay sideen taynu ku oodanay waa gartay maanta waxa laale wax bari la ma jiro buurta balay haye waxay noqoto kursin haye buuxu hareena ma jiro wata waan gartay ma gartay waan gartay haye xaajama waxa tii waqtigaas meesha isbedel baa ku dhacay muxuu yahay isbedelka ku dhacay aad oran kartaa waa oran karaa wadanka duufaana iska daba helay khatar haye waxa waa ku soo saaray haye maanta ninka wareegi lahaa haye ma jirto berigi hore say ahayd jaa waxay ahayd wadiiqa wadacad bay ahayd haye wadiiqooyin cadcad oo dadku arkay oo la baro haye يعني هذا الردي بين كوري ما دوجد وددي وأركي مركي لو عشينا يا لو قضي يلا صون قضي القدك دمكو كشذا يا عرس له ولا إيمان تدا ردرو ذا كم مريتري ما تواتر مرو ربطة كله ودني إسبتل كداعي سام حتى إنه أصلا قلنا واحد شيء حتى قاء أمريكان كا أما صدق حيدنا قد نقضى أما اللي حما بصق عليه iyo xogaaga ka ururisaan yani raashinada iyo timirta waxa idin ka soo haray markaad kurugiina is qaybsataan fasax ma lahaydeen maya midaan lahayn wax fasaxa waxa fasax ma jirin haye fasax lagu siin maayo hada waxana ururinaysaan yay reerihiin u geyn jiray waxa u geyn jiray saximada wayga shan iyo 10 cashuba noo iman jirtay haye وماشى ساعتون كواحد هاي ودتك إلى اللي ترت معنا هاي هدي وحكا كواحد هاي كاسانون كوادو إلى رير كيما قال يا هو نقوليا ما راح يوحى حاجة هاي إلى أنت وصول نقوليا هاي لكن حدود تري ورجلي سكتشو بتري صح مركانه وكواسانو قبل لاي صدق بلود هدانو تشوفه حبت يا عرا سوبر قالوا دورنا إن تبرع بين بان مغنى هاي وإيمانا إن هالك يبان هالك قري رجينا واحد niman dhoof ka yimi oo kale markaad magaalada tagtaan iyo reeri bas ka hadlaysaa waxaanu nahay niman tijaara baa 20 ceesaamood 10 ceesaamood ka ibsaday wixii ay ka ururiyeen haye
ودي أنت ماشي أبغى يسمعها ها بدر كلمة متري هي توا هي أنت سألوا مع الناس ترى عاد يا بي هو فين لكن مركي أي مقالة سوق شيء الطريق والله فري ها تمركز صدوي صوفهم به خسرت الميس طويل صوفهم به كنا ما عاد يكمل وشراق إلا جرست واتهاي رنهان وشيكو dareen ahaan xusuus xambaarsan waa qiso ka turjumaysa ama taariikh laga dheehan karo waqti jiray iyo wacyisidoo ahaa xaaji jaamac aan u soo noqonay iminka isbedel baa dhacay wad aragtaa run ahaan isbedelka dhacay qayb wuxuu ka yahay dhinac walba way xidhmeen mayd waxaad arkaysaa isbedel fara badan oo xoogan baa ka taagan isbedelada maxaa u sababaad oran kartaa waxa u sababa horta waa xagga camiraada nimankii markii hore wax ka dhoofsan jiray waxba isbedeloo meelo kale aan ma raynahay waan gartaa ilaahayna tiisa la maqanay wax yimid doonya carbeed oo doolar iska siya doonyihii mudday gurteen kalluunkii iyagu lacagna waa ka heleen يعني دوية وين بيك إبسدين عربتي هي لكن أنا أقول سحن بانو بدو عنا حبك بهيد سحن بانو أنت تبى فوستان مسقادة دوني دي تام فوستا كقاعدة ديسال كيمان سيدا يقول مقالة فوستا برميل كديسال كاي وحويان $60 كمرايكن كاب مركا تمام فوستا لين كجي بدشوا وقتيان واحد سيكتين dawladaha shisheeye ama Yamanta dariskeenna ay ku bedelan jirtay 10 foosto dhowr iyo 50 tan oo kalluuna maxaa bulshada u soo hari jiray haba soo hari jiray waxa la wuxuu soo hari jiray ma jirin iminka Yaman dagaal baa ka socda saameyn inta leeg ku yeelatay badda intaynu soo soconay jaamac saacad iyo saayid baynu soo soconay saacad iyo kusoo waxa ii muuqatay kalluun fara badan oo noocyada kala duwan deerigii baad arkaysay tamadinka boodaya faraski run ahaan diiradda kamarada Star TV waxa qabanaysay noocyo kala duwan oo khayraad ah yani maxay dagaalka Yaman ma la oran karaa ka socda wuxuu barxiyay khayraadkiisa faraha baan lagu hayay la daldalay aad iyo aad taamarkan kaaga jawaaba aad iyo aad buu u barxiyay aad iyo aad buu u barxiyay waxa weeye inagu waxaan leenahay togag waadiyaal waaweyn كان مرشقي صومرات كتقع كان جلب صومرات كتقع كان سرقات صومرات كتقع ماريو كي ماذا كان حبيس كانت كتقع انت سوتك باتات كنت سيدا وقليا مركا النجا وحك استودع عربتها ترى هذا وريال ما كلهم باودونس نمع إلى السيء بيت هذا واتهاي جامع عطينا هالك قدوبنا وعيبه وعيقي صلاة هدي وقت كان لقوا بدلنا يجوا أمريكانا وقت كان دور فستان نافتا لقوا بدشوا ووقت يشيلكي أنا أصلا نقلنا بالشدة واحد شيكتين مقعيب بدن كلا هاي بورتن ربشي جاي نهاتن دول فردنا أو أحمد كواد الجامع برنامج لقى ديارية مقعيدي بالشدة قدتك أدوسو كوبي يقضوا الماء أفر بقع بيلده أفر بمقع بيلده بالشدة قضوا الماء يا بقول كلولية هي بدوا جنبتشاه وتيور يسي أنا مني جنبتشاه وراشد قال لي ديك واقع سحارة واوي وحلن وأنا لوجا عفدي قال ديك واقع فوز بحاله واوي ويانا برعة بيها اللي كوشي ترى طبعا بيلها وهذا الكيس هو شمالكم مركو كعو كوا تاجية واوي نهاي استجدارك تشي سنك صارن تمر هذا وجنبتشاه طلبات وحرصص له واكي وكاوين قد كان كنت سيء والله سيحنا سيحن شرتين وقرتي كصدحات ولا قدرين إن دول فردنا يمك هذا برسول قدرين وبعدين نشوف وكا بالكو سمقريو اللي بيجي كده وكا عدان سمجي عدان كوارك وكا إلى هالكا وسيدا اسكتورج وقرتي يجيت كده وحلا إلها قرالي وقرالي واتي أفراد تعشين براحن ما كتقعنا مقعيده وذا قاركود محاكم ميدا حقايب هذا
bahal yibir la yidhaahaa baa jiro badda quusa oo shimbir ah oo shimbir ah waa kow aad arkaysaa haye buu odhaya waxaa badda kalluuna badda uu la soo baxaya waa garsan waxaa kale baryo weyn baa la yidhaahaa baryo weyn meeshay ku dhashaa waa laakiin markay mana waa ta ugu xaarka badanba baryo weyntaas maya wax weeye xaar kuwan uma dhigaan bisha lixaad baa waxay yidhaahaa jundi baa yimaada jundi shimbir ah jundi yani jundigu waa maxay waa ilaahay haye ilaa buurta afkeeda baa sidaa hir uga imanayaa sidaa haye war waa hir shimbir ah war waa hir haye war waa maxay sidaad u joogtaabay sida u habsanay waqtiga qaar shimbiraha qaar baa laayana waqtiga waxba idinma yeeli jirin annaga waa lagu tuban jireen laakiin anigu labada sano qor 30 aan ku hadhay haye oo la yidhi ku hadhay haye markaa waxaanu ilaalinaynay shaqada waa laga tegey alaabta sidaan u rari lahay haye bishii lixaad bay noogu yimaadaan waxaasaa u guuray haye waryaalay waa adiga iyo rag kale imsanin 30 Allahu akbar haye meeshii wax lagu jiray waa ka soo carar waa ka soo yaacday waxaanu maxarsasi haye dee markaasaad yaabaysaa halkaa haye waxaad moodaysaa koronkoraysaa isku fuusa haye lagu dirir iyo hayn weyde xarsas la qabatay gambaja ka carar saasay kugu fadhiisanayaan haye iyagu dhagax iyo dad uma kala socno haye وحسوس رن هانتي هذا فرصة نقطة تاس واتجيان يقول واتجيان مالك سوق عيان هل كان يتجانا كلام الشيء وهالكي وهندي هندي يكون نقطان بورو هندي أكويان بيتجا سيدا كوكو مقالة ما كدت كويديسين وهندي يخاف شيء يسقى كلا طب قادن جنودس وقطن بينتي جامع run ahaan baaweynta waxaanu kaaga mahad celinaynaa booqashada iyo boqolkayna halka ku nimi hadda ka hor ma jirto ciid barnaamij ka samaysay sida inaga oo kale maya waxaan arki jiray huwa doonaya 2 jeer oo aan barnaamijka oo kale samayn laakiin ina masximada loo soo loobayay 4 jeer ka soo qura haye waa arki jiray oo 4 tijaabo ka soo qura waa gartay laakiin wax kale dhinac laakiin saxafiin hore idinku timi jiray ma arag saxafiin hore idinku ma waxaan aad ugu faraxsanahay inaan nasiib u yeesho ragii 350 jaac ka mid yahay ee bogcadan baftada iyo Mareykanka iyo ka qaadayay laga bedelan jiray ya salaam waqtigaas waxa ku ahayd xusuus leer bayahay xusuus leer bayahay wax weeye dadku waaraba iska qaawana dadku waa qaawana baaba qaawana wixii ba halaqid Mareykan dahab yala waxaad ka dhignaydeen kuwii la oran jiray janaale ilaahayu يا سلام واتهاي أديان كعجم هاد نقيا تاوض يال رهان صادقين مقطع جامع وخبير وبتشوق صاحة وحنا كون يكون شرقم هاد علينا نادر نهاي بحوين تستار في فرصة النوسية إنه نلو ذاكو تبع عقشة حسوسته جي يوعي ديرة وعيقة واتهاي تاوض يال جامع هذا يوم هاد سنة رهان تي وحنا قم هاد علينا فرصة النوسية إمي كان مقالة annagoo maxay u ridi doona shimbiraha baaqiyo kala gadisan noocay ahaataba si ay dhamaan u wada kacaan wali jundigu qaybi ma guurin oo barba fadhiya nala wadaaga muuqaaladaasina taawadayaal saad u aragtaan baaq baan u ridnay shimbiraha waa kuwa hal mar isla wada ogsaday mar labaad ayaanu baaq u ridaynaa maxamedow u baaq mar labaad u baaq taawadayaal sidaad aragtaan waa kuwa shimbiraha dhammaan way isla wada oogsadeen mar iyo labaanu u baaqnay sida idiin muuqata taawadayaal saad arkaysaanba waxaanu waxaad nasiib yeelatay inaan maanta bogcadda buurta rabshiga oo ah jasiirad iyadu saldhig u ah shimbiraha caalamka oo idil inaanu programkan ku soo qaadano xubinteeda labaadna ka hor dhici maayo aan isla programkan ku soo qaadan doono
waxaanu ku soo noqonnay magaalo xeebeedda Maydh walow Allah noo sahlay dhaawac yar oo fududina soo gaaray iminka waxaa cajiiba sida feebarka wadanay dabadda loogu soo tuurayo bayloodku runtii waa inaan bayloodka badda waa feebarka aanu badda ku wadanay run ahaan waxa waday baylood السلام عليكم وعليكم السلام برنامج كثير توعية وحالات بنقول حسنا أنا عملت كلنا أهلا وسهلا وتسولوني كل واحد برنامج ستار تي في ولدي مهل علنا بدي حمليني بقر كورا حالتا إيه مقالدي ولو أي إمك بدي صافر ما يصل حالات دي مقالد واحد جوي كلا دوين أو حالات بتفرم بينو كلاي أو وقتي بتفرم هذا على الصاق كلاي حالك صباح حاجة dee waa aragtaan magaaladii gaadiidka iyo wixii waa kala xiran yihiin dhaawac weyn waxa uu geystay dagaaladii Yamanta iyo waxan ka dhacaya وكرتي ayaa dhaawac u geystay oo xeebta ku furantay dee ruuxaantii laf dhabar oo hay gaadiidka badda Yamanta dee dagaalka waxa saar u geystay dhaawac oo aafiyay dadkan way muuqataa oo magaalada waxa ka muuqda dibadhac baahsan walow ay tahay bad furan xilligan oo la oran karo badii ma furmin furdada xeebta boqor maxamed nuux furdada xeebta Maydh rahan boqor waxaan aad ugu faraxsanahay imaadkaygan Maydh iyo barnaamijkan diiradda wacyiga aanu kugu marti qaadno waa mahadsantihiin waa si fiican oo idinku soo dhaweynaynaa degmada Maydh waana markii horeysay Star TV taariikhda magaaladaba runtii Mr. Cabdirasaaq Teera waa kaaga mahad celinayna adiyo saaxiibka kamaradiista boqoshada noogu timaadeen ilaa rabshiga meel ku soo boqoteen runtii inkastaad ku sigatay maanta Cabdirasaaq run ahaan haa boqor nin sigtay ma nabad gelin waxa muuqatay run ahaan laakiin waxaan dib loo marinin shaqayso Maydh qoodisa ama ah waadiga ay wax u maraan in badan oo kamid ah mantaqadan maanta waad aragtaa Maydh way xiran tahay dhammaan gaadiidkii dibadda yaalaan dadku lahaayeen waliba ku gaadiidleydii badda haday tahay kalluumaysatadii haday tahay libaaxaysatadii halka diiradda sida kaaga muuqata banaanka yaalaan sanadkan oo horeeyana maaha sanado badan banaanka yaaleen Maydh waxa muuqata furdad kaliya oo naawilaysa dooni carbeed oo ka timaada dhanka Yaman bal boqor ka waran waayaha isbedelka iyo muddada dheer nin soo joogay ayaa tahay wax badan xog ogaalka ruuxaantii waa muuqata isbedel badan inuu dee jiro runtiina waa hay'adii meeshan ku dhalatay ku kortay wax ku baratay inta ku soo laakaatay tan iyo waqtigaas iyo maanta ba taagan waa kulay waa kamid ahay runtii inkastoo maanta raggii dadkii halkan
taariikhda badan iyo magaca ku lahaa waayeelka ka ahaa ay maanta aakhire wada jiraan iyagana ilaahay ha u naxariisto waayahan aad ka aragtid maydh waxay ahayd fursadaha ugu qaalisan ee ka mid gobolkan Sanaag ee lafdhabarta dhaqaalaha u ahaa waqtiyadii hore marsadan hadda ku muuqata waxay marsa caalami ah oo dooyo aan ku kala furfuran jirin 66 dooyood baa soo gali jiray kalluumaysiga laftigiisu dhinac buu ahaa xoolo import export bada way lahaayeen waxa afeeyay waqtiyadii dagaaladii dambe ee SMT iyo waxaas baa dagaaladii dalka la soo galay ayaa intii ka dambeysay horumarkii markaa jiray iyo ganacsigii ka jiray meesha tan degmada Maydh lafdhabarta ugu ahayd gobolka Sanaag runtii meesha uu ka baxay wixii ka dambeeyay inta dadkan halka jooga maanta aad aragtay ku muuqda horumar ballaaran oo heleen horta ma jiro intii ka dambeeyay waxa ku wareegayeen dooyo yar yar oo Yaman ka yimaada bay magaaladan ku furayd waxa ka dhoofay wax ka soo degaa laftigeedu way yareed waa jirtay man ade shaqaale ka ahaa oo custom officer aan ka ahaa waqtigii ilaa 95 ilaa 2003 shaqaalihii horeeyay wasaaradda maaliyadda lagu furay baan kamid ahaa 5 shilin oo guna ah baan ku bilaabay rag ilaahay darajada ka gaaray baan kamid ahaa runtii wacyiga maanta yaalay kii shalay iyo kii dhexe midna isku mid maaha wacyigan maanta ku muuqda dadkan halka jooga waxay ku xiran yihiin gaadiidka badda xeebina sideedaba horta waxay ku xiran tahay ku furaataa waa gaadiid badeed oo soo galaya dhaqaalo markaa wada iska baya hadda waxaad ka muuqataa fada idin muuqata waxa jirta ma jiro ganacsatadii maal gashan lahayd ee gobolkan u dhalatay waa wax raacay burburkii iyo wax abaarida wixii ka dambeeyay ay hantidoodii raacday wixii inta ka dambeeyay dadkanu xabad kalluun ay la soo baxaan ayay barnaamijkooda ahaa oo ay ku noolaayeen waa tahay boqol maxaad noox runahan waxaad waayaha markaad soo joogtay maantana aad tahay jiilkii iyaga laga sugayay horumarinta waaye badan ilaa iyo waqtigii aabayaashiin aad soo taagneen waxa taariikhda lagu xasuustaa inay jireen doonyo dadkan lahaayeen ma doonyo Yaman ka yimaada oo doontii Yuusufeyn ay kamid tahay halka lagu sameeyay halka lagu lagana diri jiray oo haday tahay dhoof iyo haday tahay kalluun iyo dan kastaba maanta waxaas ma jiraan ma jiilkiinan waqtigan oo waqtiga aabayaashiin taagnaayeen maanta taagan baa hawshoodii gabay waayaha isbedelay waayo maanta xeeb kasta aad eegto geegan waxa la naawilaya dooniyo Yaman ka timaada marka halkayga wax ka khaldan yihiin badaro lahayd waxay ka khaldan yihiin horta jiilkan maanta jiray jiilkii hore dad isku mid ah maaha isku fakar aha isku dhaqaalan aha runtii jiilkii hore jiil wayaaraga oo fakarayay oo dhaqaalaha sida loo soo saaro garanayay bay ahaayeen khibradna u lahaa dad la isku kaayay ma kumi karana maaha runtii waa runta maanta jiilkan dambe waan maanta isimka ahay waliba degmadan ka soo jeeda aan ahay runtii way jirtay doonyo badan oo halka dadkan u lahaa dadkaas dawlad adeegna way jirtay dhaqaalahooda waa la kabi jiray kalluumaysiga waxa jira shirkado sida halka daartaydii ka muuqata ah oo shirkad kalluumaysiga loo jiray raaga loo jiray laashish baa lagu kabi jiray qalab badan baa lagu kabi jiray waa tahay dhaqaalihii maanta iyo kan maanta isku mid jiil kalluun maanta fakirkii waxa la oran karaa marka su'aashaada dib ugu soo noqdo isku dhaqaalana maaha isku fakar maaha waa tahay boqor aan kula kaftay adaa ku haystee kolka aabayaashiin ka fakarayeen inay doonyo samaystaan maxay tahay shirkadaha iskaashatooyinka raagi kamid ahayd runtii aan ahayd ay samaystaan wala oran karaa fikradii maxay tahay mutamidka ahaa aad kamid boortantiga ama muhiimka u ahaa ay ku fakari jireen idinku halkoodii waxa galiseen kobcinta iyo kor u qaadida santaaladaha ama madax dhaqameed waa laga yaabaa intaas suurtagal ay kalmadaad u soo noqdo aad igula kaftamaysid waa laga yaabaa laakiin sidaad u dhigtay su'aashu maaha run ahaantii waayo dadkan dhaqaale lagu kabara ma haystaan ganacsina ma jiro
gobolka ku tusaale laftigiisa gobolkan iyo degmooyinkiisa iyo furdadihiisa waxaad moodaa inay aafo dhaqaale la'aan ku habsatay siyaasad aad moodid in lagu curyaaminayaana ay jirto maamulada jiraan wax policy gaar ah oo gobolka horumarintiisa laga shaqeynayaana oo u yaalaana ma jiro total ya waa jiraan mashaariic badan oo kalluumaysiga lagu soo qaata khayraadka lagu soo qaata dadka waa ka ardayihiin waa tahay su'aasheeda u dambaysa mudane boqor maxamed nuux aadan saaka waxaan u baxay rabshiga tan iyo saacadii aan sii socday maydh ilaa iyo rabshiga noocyada kalluunka hadday tahay tamadinka hadday tahay teeraga hadday tahay shirwada hadday tahay saynuurta dhammaan waxay ka dhex nooga muuqdeen diiradda kaamirada markaad waayeelkii dadkii igu herinayay safarka rabshiga aan weydiiyena waxay sheegeen inay colaadda ka socota Yaman oo baaqday kalluun fara badani haddana iima muuqato feebarra iyo laashash iyo dhalinyaro baddi galayso kalluunkaas ka faa'iidaysanaysa taamaan la oran karin maxaa taa loo sabayn karaa badan waxa loo sabayn karaa dhalinyarada hadda badfuran bir soo galay aadan looma soo daal waa tan ku sheegayo xeebo ilaa dadka hadda wali aad ma soo degin gaadiid badeed markay dadku maqlaan doonaa soo gashay waxaad arkaysaa in 10 baabuur oo soo wada galay runtii markaan tan kale laftooda u soo noqdo dhalinyaradii dib ku laashay ku istaanbay barafkii wixii ku shaqo tagi lahaayeen ayaa ka xaniban oo aanay u suurtagelin waayo deelaashkii markuu baxo kalluunkii marka la keeno waa inuu helaa Soomaha sayladii laga iibinayay waa inuu helaa barafkii lagu kaydinayay de saacada ma ooli karo waa inuu jira gaarigii marka lagu wareejinayay de qaadaya talaagadii lagu wareejinayay intiiba hadda diyaar ma aha saacadan inta marka la isku diyaariyo ayaa intaas suurtagelaysa sidaan ku maqaalahayna waa hadda aad ka warhayso soo aragtay kulli ilaha aad ku soo aragtayna de waqtigii futurkeedu galay saacadii hadun baa la soo ceeldigay qoladii barafka bixin jirtayna way mishiinkii baa ka cadilmay oo injineerkii baa soo socdaa la yiri oo inuu ilaa sharciga lagu sheegayay hadda shaqadii sidii tooska ahayd ayuu bilaabmaysaa insha Allah safarka ku xiga ayaad arki doontaa de hawshiyo sidii u socotaa laakiin runtii waxaan ku sheegayaa dhalinyaradan halka joogta iyo dadkan halka muruqmaalka ah dadka wadada hadda u diyaarinay fahmayna hadda sida wax loola soo baxo fahmayna sida kalluunkooda inay way bariga hore carabku isaga iibsan jiray baata waxay faasayeen carabka ka iibsadaan kalluunkoodi dhalinyaradan waxay u baahan tahay wax dhaqaale ku soo kordhiya tababarasiya shabaagta laga kaalmeeyo waxa moodaa wixii weynaan galbeed soo dhaafay absolutely marka dadkan oo aan ummadda biciidba ka warhaynba iyo dhaqaalahooda runtii isu dheelitir maxay tahay ama basaami qaybsi ayaa meesha ka maqan waa ka maqay taas waa run aad u mahadsan tahay boqor maxamed nuux aadan aad kaaga mahadsantiin aad baan safarkiina aan noogu timaadeen oo ku mahadsantiin welcome marda hore iyo marda baa wada soo dhaweeyay aad baan mahadsantiin adiga